الرحمن الرحيم saakay ay tahay dharaar aad u cad waxaan ku marti ku nahay xarunta midowga Yurub ee Brussels waxaan la joogaa rugacday Soomaaliyeed ahna siyaasi Soomaaliyeed ganacsatada xataa aan ka marnayn mudan Axmed waxaan shaki soo dhawaaw xodogal maxaad maanta og tahay maxaad joogtaa maxaad filaysaa maanta waxaan nahay delegation-kii laga casuumay Brussels Expo carwadii weyneed ee Yurub ay isugu wada yimaadeen caalamka dhan baa laga wada yimid 170 oo qofood ay ka soo qayb galeen waxaana la yiraahdaa seafood oo kambaniyada adduunka ee kalluumaysiga iyo kuwa kalluunka ganacsada kuwa sii gada doonyahooda wax alla wixii bad ku qaabilsan oo dhan ayaa la hogaaminaya community-yaashkaasi ya kamid dhinaca Soomaaliya noo hogaaminayay wasiirkeeni kalluumaysiga iyo kheyraadka badda mar dhow ayaan u tagaynaa hadda waxaan ku sii soconaa jidkii iyo meeshii aan tagaynay ala kulli xaal waxaanu aad iyo aad ugu faraxsanahay inaanu maanta noqonay dadka casuumayaasha ah oo ka soo qayb galay anagoo matalayna magaca ummadda Soomaaliyeed qaasatan wadanka Belgium aad baad u maasantay Axmed Xaashi